halkan adeer ninka cabdi muuse dhaydhaa baa watay dabadeed markiiba halkan soo galay dadka magaalada rag iyo dumarba way soo ururiyey waxiiba markuu isoo ururiyey geedkii halkaasi maxamaddaa buu geeyey ee cabdulaahi dhakafaar ka dambeeyey imanka halkaa markuu geeyey dabadeedna raggii markii la jiriyey wuxuu yidhi walaa dhowr iyo afartan nin weeye nin buu la faqay ninkaan magacay iigu sheegtay gabadhii meesha joogsay goobjooggahay hedel qaahiraa la odhan jiray markaa wuxuu yidhi waryaahe raggu waa badan yahay tiriya ragga waa la jiriyey 46 nin bay noqdeen 46 inagu filan buu yidhi waar sii daayey dumarka faraha ka bixiya halkaasaa dumarkii la sii daayey 46 nin bay qaabteenadeen 46 nin waxaa ku jiray 3 inan oo yaryar baa ku jiray oo ilaa 10 jir iyo 12 jira kuwaana waa kaxaysano waa ku dareenadeen dabadeeto iskarogadii baa la saaray nimankaa 46 nin iskarogadii baa la saaray markay sii socdeen qiyaastii meelahan hoose haadhe nin dhegala baa ku jira oday dhegala oo abyal la odhan jiray baa ku jiray ninkaa waxaa laygu yidhi markiiba yowda dayn waayey ayay ninkaas xabad ku sii dhigteen waa sii dhaawaceen sida lai sheegay nimankaa dabadeed waxay geeyeen goobtii la odhan jiray meesha baranka dabadeedna dadkii soo dega bay yidhaahdeen ma degayna buu yidhi aabbahay cabdulaahi sawaaxili oo laba xidigla ahaan jira oo boliiska oo ritaayar ah ayay yidhahdeen soo dega waan ma degayna nalaaya buu yidhi dabadeedna adeer ninkii cabdi muuse askari agtiisa taagan ayuu ka qaabtay qorigii baaska ahaa dabadeedna iskarogadii oo dawlacan buu saa u mariyey deedna dadka way soo daarteen raggii markay soo daarteen daartay soo galeen daarta markay soo galeen ayaa dabadeedna uu yidhi kamoon laaya haddaba halkaasaa ragga lagu laayay adeer xasuuqu siduu u dhacay adeer sidaasay ahay dabadeedna nin walba oo la dhaawac jiray 2 nin wuu cararay 46 nin baa cararay ninkaa xabad baa lagu riday markuu tag ku sii dhaadhacayay lugta lu qaadayey meel ilaa iyo 12 fuudha oo bohola buu ka booday ilaahay waxba kuma yeelin laakiin xabaddii lugtii markuu salu qaaday ayaa xabadii ku dhacday waxay kaga dhacday halkaa ciribta ninka waxaa la yidhahdaa aadan mire waa nool yahay imanka waa ninka raggii ka sii nool waa nool yahay imanka ma garatay markaa adeer ninka kale ina salandireed baa la odhan jiray markaa ninkii isaga meyd buu iska dhigay meyd markuu iska dhigay oo marba rogay oo dhiiggii dadkan ku daartay waa meyd baa la yidhi sidaa meyd ahaan baa looga tegey waxaa ku jiray ganacsato ninkii magaaxida subi jiray oo Suleymaan Dukaan la odhan jiray wuxuu ahaa nin ganacsadaa buu ahaa allah u naxariistay waxaa kaloo ku jiray abwaan nin la odhan jiray Saalax Dhunkaal oo gabyaaya ayaa ku jiray adeer ma garatay labadan nin walaalay ahaayeen Saalax Dhunkaal taariikhdiisu waa taariikh dheer weeyaan waa taariikh dheer waa la yaqaana